gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari iyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi ayaa kulamo ay yeesheen waxay go'aamiyeen in ay taageeraan musharaxa ay dadkiisu jecel yihiin. Jawaari ayaa Cabdi Xaashi u soo jeediyey in la taageero Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si dalkan loo geliyo isbeddel lana arko shacab la shaqaynaya dowladooda. Cabdi Xaashi ayaa go'aankaas qaatay isagoo ku taageeray Farmaajo Itoobiya nacaybka iyo sidoo kale arrimo ku aaddan rabitaanka shacabka, waxaana uu sheegay inuu gacan siin doono inta tabartiisa ah. Labadan gudoomiye ayaa sidoo kale ka tashan doona haddii Farmaajo uu noqdo madaxweyne sidii loo heli lahaa sidoo kale ra'iisul wasaare isna ay ka go'an tahay wax u qabashada dadka iyo dalka. Jawaari ayaa horey u ballan qaaday inuu taageeri doono musharax Farmaajo kaas oo hami badan ka leh in dalka uu isbeddel xooggan ku sameeyo.